tirada dadkii ugu badnaa ee qaba xanuunka juudaanka ayaa la sheegayaa inay haatan ku nool yihiin gudaha Soomaaliya. wariyahayaga Sayna Maxamed Aadan ayaa warbixintaasi inooga soo dirtay magaalada Muqdisho. 1576 qof ayaa la sheegay in ay qabaan cudurka loo yaqaan juudaanka kuwaasi oo ku nool gudaha Muqdisho. hadalkaasi waxa warbaahinta u sheegtay wasiirka caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur. waxa ay intaasi ku dartay tirakoobkan in uu ku eg yahay magaalada Muqdisho walina aan tirakoob lagu sameynin dadka ku nool gobolada dalka ee qaba cudurkaasi. wasiirada ayaa shaacisay inaysan jirin isbitaal lagu daweeyo dadkaasi oo ku yaal gudaha Muqdisho iyadoona ballan qaaday in wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ay furayso xarun lagu daweeyo dadkaasi. tirada aan hayno ilaa ay hadda wasaaradda caafimaadka iyo WHO waxa waaye 1576 ruux oo xaaladaas ku sugan xanuunka 187 waa caruurta qabta 93 waa dadka waaweyn ee u naafoobay cudurka. wasaaradda caafimaadka waxa ka go'an inay la dagaasho waxyeelada u geysan kara cudurka iyo wacyigelinta bulshada. cudurka Soomaalida inta badan waxay dhahaan dadka juudaanka qaba ama faraguro waa dadka cuna oo ilmaha lagu cabsisiya. taas ma aha wax jira, waa wax runta ka fog. cudurka naafeyn uu leeyahay. qofka wuxuu awoodaa haddii uu jirado inuu isagoo daawo qaadanaya cudurka laga hortago inuu sii faafo, neerfayaasha uu sii dilo. waa qof caadi ah bulshada la dhaqmi kara. waa calool xumo in la yiraahdo dadka lagu takooro dadkay cunayaan ama laga kala cararo oo qofkii xitaa uu awoodi waayo inuu bulshada sideeda kale u dhaxgalo. wasaaradda caafimaadka waxaa ka go'an inay la dagaasho wacyigelin weyn ka sameyso iyadoo kaashanaysa wasaaradda waxbarashada, shaqaalaha caafimaadka, culimada iyo dad qof kasta oo naga kaalmeyn kara in laga hortago wacyigelinta. faquuqa waa waxyaalaha ugu waaweyn oo rabna inaan ka hortagno. sidaan wada ognahay cudurka daaweyntiisa waa lacag la'aan. waxa aad nooga kaalmeeyo hay'adda caafimaadka adduunka oo daawooyinka nasiisa. wasaaradda siyaasadaha u degana waxay tahay in cudurka juudaanka ama leprosy loo yaqaan afka qalaad in laga hortago ku darsano siyaasadeena sidii looga hortagi lahaa, muhiimad weyn loo siin lahaa, loona kaalmeyn lahaa dadkaas masaakiinta oo Soomaaliyeed oo cudurka u jira. dadka qaba cudurka juudaanka ayaa Soomaalida waxa ay ku sheegaan in dadkaasi ay yihiin kuwa cuna bilaadanka, walow wasiiradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya arintaasi ay beenisay. Sayna Maxamed Aadan, Somali Cable, magaalada Muqdisho.